ودولة قبلات بوحدة دي اللي را وحبين كدولة فدرال كصومالي وحكى له عن ربا إن أيضا هل كان أنك عديه وقوي بري إن أي لا ذا دمان حقوق ذا أي ليهين دولة قبلات ذلك الدلك جمهورية فدرال كصومالي وحينا هذا وحي كذب ويستاجي سادي بوليس هرمارين دجانا وقوي بري الصومالية سيدو كلا دولة فدرال كصوماليا وحي كساعدي سامام الكعصب لنا أمنية هي الدجانشية الدجانا وقوي بري وقوي بري وحي أستان أطهاي من نبض أمد الصوماليات هي إلالين تم ضحبناني ذا هي وذجر كذا أمد الصوماليات waxaad halkan dheer u soo gasheen oo aad saldhig u noqoteen midnimada dalka oo aad wax badan u hurteen inaad xaqiijisaan waa taariikh qormaysa iyo fariin aad u diraysaan kuwii u shahiiday xorriyadda iyo kuwii naftooda u huray midnimada dalka jiritaanka iyo horumarka dawladda waqooyi bari inta ay xambaarsan tahay oo in dhimatay in noolba macna ugu fadhida waxaan halkan ka cadeynayaa inaan dunida iyo dadka Soomaaliyeed u xaqiijiseen inaan Soomaaliya aanay kala go'i karin waxaad halkan fariin uga diraysaan anna aan idinku raacsanahay idin la dirayaa Netanyahu oo dhulka reer Falastiin boob ku haysta hor istaagsan dawladnimada reer Falastiin dunida dhan ay aqoonsatay waxaan cod dheer ku leeyahay marna suurtagal ma aha in Israa'iil ay samaysato Soomaaliya dhexdeeda dawlad furisa istaraatiijiyadeeda guracan suurtagal ma aha istaraatiijiyooyinkaas guracan inay gobolkan ka hana qaadaan ama dawlad Israa'iil wakiil uga noqota u shaqeysa sidii ay ayadu rabto suurtagal naga ma aha dabcan sida ay rabtana waa dhammaanteen Netanyahu waxaan leenahay dadkii soo waa diideen arrinta dunida oo dhanna waa diiday damacaaga guracan waxaan leeyahay gobolkan ma aha meel si qasab ah loogu soo raro dulmanayaasha reer Gaza ee guryahoodii la dumiyay dhulkoodii la qaatay inta kalena qaato la raba hadda sidoo kale ma aha meel loo soo raro colaadda gaamurtay ee bariga dhexe ka soo jirtay muddada aad iyo aad u fog walaalayaal waxaan leeyahay maamulka waqooyi bari waxaanu idinku garab istaagaynaa sii wadida nabadda iyo dib u heshiisiinta oo ay ugu horeyso isweydaarinta maxaabiista ku xiran labada dhinacba oo dhan kasta xorriyadda wiilasha Soomaaliyeed ee dhan kasta ku xiran cudurdaar looma haayo si xirnaantooda sidaas daraadeed dawladda federaalka waxay u istaagi doontaa idinkuna garab siin doontaa cid kasta oo danaynaysan ay garab ugu tahay in wiilashaasi xorriyadoodii ay dib u helaan meel kasta ku xirnaadeen ee siyaasadda xoogaa qocatay u xiran waxaan u mahad celinayaa reer waqooyi bari sida ay nabadda ugu heelan yihiin waxaan rajaynayaa inay helaan cid la nabadowda nabadda ay u heelan yihiin cid sidoo kale nabadda u heelan in ay helaan ayaan rajaynayaa siyaasaduna waa halkeeda oo waa mar kasta midnimadoon inaan wadanahay kulligeen siyaasadda mugay noqoto waxaan ku midoobaynaa waa midnimadoon iyo midnimadii inaan xaqiijino waxaan halkan dhambaal uga dirayaa shacab kale ee waqooyiga Soomaaliya ku nool oo aan leeyahay
kuna celinayaa marar badan walaalayaal Soomaali baa tihiin wax wada leenahay dal Soomaaliya liira oo caalamku in ay yihiin dal xor ah oo jira waqti badan ay saga dhumina mid cusub oo hadda la baarbaarayo waxaan diyaar u nahay inaan ka wada hadalno mustaqbal qurxoon oo aanay suurtagal ka ahayn wixii shalay dhacay inay soo laabtaan mustaqbalkaas qurxoon waxaa suurtageli kara oo keliya waa midnimo ku timaada wada hadal heer kasta iyo isu tanaasul ma aha heerka nationalka bas inaan midnimada ka raadin ama ku wada hadalno laakiin waa inaan gunta ka midownaa si aan midda kore ay u adkaato una ilaalina haddii aan la yiraahdo waxaa wax kasta oo inaga dhaxeeya wada hadal dhinaceenna wax lagama hadli kara aan leenahay wax kasta oo aan ahayn midnimada waa laga tanasulayaa ee waa laga tegayaa ka hadlaan ogolnahay midnimada wada hadal midowna wada hadal kama diidma kama furra sidoobaynaa iyo sidaana xoon iyo waxaasoo dhan hase yeeshee waa ka furan yihiin laakiin maanta waxaasoo dhan waxaa isku fuuqsanaya hal shay dhulboobka Israa'iil waa maya waana qad axmar qad cas oo aan in laga gudbo aanay ahayn waay danteenna maaha danta geyigan aan ku noolnahay ma aha Netanyahu isaga ayaa go'doon ku jira kama yeelayno inuu qaybo ka mid ah shacabkeenna Soomaaliyeed go'doonka uu ku jiro oo kale uu geliyo ka yeemayno aqbalaadda aqoonsiga Netanyahuna go'doonay dadkeena gelinay qaybo ka mid ah marka wax la aqbalo ma ahan haddii la yiraahdo waxaan uga mahad celinayaa hoggaanka iyo shacabka waqooyi bari sidoo kale inay nagu saacidayaan sidii nabad looga dhalin lahaa shacabkeenna dhexdiisa loona sii deyn lahaa wiilashaas aan sheegay oo loo furi lahaa wadooyinka si loo sahlo isu socodka dadka iyo ganacsiga loona walaaleyn lahaa dadka Soomaaliyeed intaasoo dhammi waa in aad iyo aad u qurux badan wanaagsan anaan filaayo kana rajaynayo shacabka iyo madaxda waqooyi bari in ay ogol yihiin waana rajaynayaa cid la ogolaato oo ka aqbasha ilaa hal gacan kaligeed ma sacbisaan la yiri waa in gacan kale la helaa waxaas quruxda badan aan ka helnay aan sheegnay oo dhan waa in la helaa cid kale oo la qaadata oo la aqbasho oo la weynaysa ilaahay idinkiis waana la helayaa walaalayaal ugu dambeyntii waxaan ugu baaqayaa aqoon-yahanka dadka khibradda leh iyo qurba joogta Soomaaliyeed inay ku soo laabtaan dalka hooyo iyo deegaanadooda oo ay ka mid tahay waqooyi bari si looga bilaabo mashaariic horumarin dhaqaale iyo dhismayaal aad iyo aad nolosha dadka wax uga bedela sida dekado garoonno soo saarista shidaalka iyo macdanta iyo horumarinta kalluumaysiga badda intaasoo dhammi aqoon loo helo ayay u baahan yihiin aqoontii intii noo joogta dalka way noo joogtaa inta dibadda jirtay khubarada ah inay mishaar qaataan uga shaqeeyo war mishaarkiina waad helaysaa aan leenahay wax ka wanaagsan oo mustaqbalka ummadda uga fiicanna waad helaysaa waxaan rabnaa waqooyi bari madaxdiisana aan ku qornay haddii ay tahay dhaqan iyo haddii ay tahay madaxda la doortayba nabad inay u taagan yihiin ayay noo ballan qaadeen noona xaqiijiyeen dowladda federaalka ee Soomaaliyana nabaddaas ayay gacan siinay ayay garab taagan tahay waqooyi bari cidna duulaan kuma aha waxaan rajaynayaa inaan ayadana duulaan aan lagu noqonin
dowladda federaalka ee Soomaaliya dadka Soomaaliyeed isku soo celintooda midayntooda hal dowlad iyo hal calan u wada yeelistooda ayaan ku mashquulsanahay walaalayaal Soomaaliya hal mabda oo weyn aan u baahannahay waa mabda aan leeyahay lagama tanasulayo midnimada waa inaan midownaa waa inaan midownaa inaan isla ogolaano isku raacnaa markaan intaa meesha soo gaarno qodobka ku xiga wuxuu yahay sidee loo midoobayaa ra'yiga ka furan talaa ka furan waqti dheer inay qaadataa suurtagal ah waqti gaaban inay qaadataa suurtagal ah waa wax laga doodi karo furan laakiin ma midownaa mase waa kala tagnaa su'aal miiska saaran oo magaciisi maaha walaalaha madaxda Hargeysa joogta waxaan rabaa inaan u sheego war dadka waqooyiga Soomaaliya qaybahaas joogaahi in badan ayaa la soo marin habaabinayay daan dabagaala aan weligii la gaarayn loo tilmaamayay ilma geedka muuqda lagu geedigeliyaa lalahaa waa soo dhowdahay maantana meesha xumeeday caga dhigatay oo Israa'iil aana waxaysatay dadka waqooyi bari waxaan leeyahay dadka waqooyi u dhashay gobolada waqooyi qaarkood ee midnimada u taagan deegaanadoodii inay ku noqdaan looma ogola dadkoodii inay u tagaan ay soo salaamaan looma ogola hooyadii haddii ay xanuunsan tahay ama walaalkii uu geeriyoodo in uu tago uu muxuu ahay soo salaamo looma ogola laakiin saracaad wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil inuu yimaado waa loo ogol yahay Soomaan isgabsan ma aha labadaas arrimood ya wiilka Soomaaliyeed ee Soomaaliya inteeda kala jooga iyo gabadha Soomaaliyeed ee hooyadii ama aabii inuu soo salaamo raba oon siyaasad wadin oo aabbuhu aanu siyaasad ka shaqayn hooyada tacbaanka ah aanay siyaasad ka shaqayn inuu soo salaamo oo ka soo duceysto in loo diido yahuudigiina la keena meesha oo nin ay koofidii yareed inta u saaran tahay la shushumiyo dhinacyaha laga marmaro oo calankii saas loo lulo calanka buluuga aanay qofkii wada tahay xabsiga hal la geeyo la yiraa waa maan guracan iyo garasho jaantii la sheegi jiro waa maan guracan garasho jaan wax xikmad ay ku salaysan tahay oo maanta adduunyada kale iska dhaaf annaga Soomaalida inaan fahmo adduunyada kale xataa ay fahmi karta ma laha Israa'iishaas dadka dhan ay la dirisiinaan annaga aanan weligeed yaa maqlay annagoo muxuu waayahan Israa'iil wax ka sheegayna ama caynayna ama wax dhahayn waxba kuma raacsanayn sida ay u dhaqmayaan iyo sida ay u nool yihiin iyo sida ay waxyeelayaan kumaanan raacsanayn laakiin haddana intaan duulno dagaal umaanan aadayn laakiin nasiib darra ayadaa soo duushay hadda noo timiday ku guulaysan mayso qarni ka horay ahayd markaan saan cadaalihii yimiday wixii dadkan awooyaashood iyo awooyaashood ay ka eriyeen oo ay diideen in ay maxaan ku raacay waxa macal kuwa maanta Hargeysa jooga ay ku jiraan qarniga 12aad suurtagal ma aha Israa'iil meeshan meel ugama banaana dadka Soomaalida ee ka dhax arkay maslaxadda waxaan leeyahay walaalayaal maslaxad idin kama jirto halka Israa'iil maslaxada idin kama jirto mid adduunyo iyo mid aakhiraba idin kama jiraan yaan lagu kadsoomin oo caadifada iyo emotionska dadka yaan laga faa'iideysanin maalin dhaweytaan ka hadlay aqoonsiga ama dal jiro adduunyada aqoonsan tahay inuu kala go'o waa inay horta dalkaas iska lahay waa inay ku heshiiyaan waa kala baxayna waa kala tegay waa inay yiraahdaan ma dhicin adduunyada taariikhda cusub dal dawlad la aqoonsanaa oo caalamku aqoonsanaa mid qurumaha ka dhaxaysa ka tirsan oo hay'adaha kale caalamiga ka tirsan
oo si qasab loo kala jaray dadka dalkaas ka dhaxeeya hadii dawladnimadu ku heshii waayeen inay isku qanciyaan iyagu waa kala tageynaa markaan aan ismac salaamayno oo ay la yimaadaan yiraahdaan annaga waa ismac salaamayneena oo sida lagu aqbalo dadka sida dhahay oo dhan dib u eeg wax kala wada ka dhaxeeya waa kala diin waa kala muxuu ahaay jinsi iyo cirqi ku kala duwan yihiin muuqaal iyo macnay ku kala duwan yihiin waa dad markii horeba siyaasaddu ay isku keentay waa tan hore uga hadlay dawladnimadu waa laba nooc midna dad isleh oo meel isku mid ah degan ay dawlad si ay ugu ilaaliso waxa ka dhaxeeya waxa dadkaas ka dhaxeeya oo u ah udub dhaxaadka inay u ilaalisay dawlad u samaystaan kuwane isma laha isku diin ma aha isku luqad ma aha isku dhaqan ma aha isku habnololeed ma aha waxay dawlad u raadiyaan u samaystaan si ay ugu samayso wax ka dhaxeeya si ay ugu samaysaan ayagoo kala diina oo kala dad ah haddana wax ka dhaxeeya inay helaan haddaan wax laga ka dhaxeeya dadku aanay helin dawlad ma noqon karaan annaga Soomaali haddaan nahay ilaahay ayaa na siiyey naxariista ilaahay nagu galladay ka mid tahay wax naga dhaxeeyaan leenahay Soomaalinimada naga dhaxayso afaa naga dhaxeeyo diina naga dhaxeeyo dal mid ah naga dhaxeeya waxna kala qaybi kara ma lihin maamaadii wasiirka walaalka Jabuuti halka uu ka sheegay waxaan birina gooyn biyana mayrina naga dhaxeeya ahay Soomaalinimada markaan waxaan u dhahay inta oo reer Jabuuti ah annaga Soomaaliya marka waa sidee xalkeen wax naga dhaxeeyaan leenahay oo aanan ku kala bixi karin kuna kala go'eynin si qaab darro ah aan isaga raaracno waa halkeed wax rag jeclaado ama rag ku taliyana ma aha sidaas daraadeed walaalaha waxaan leeyahay aqligu ha soo noqdo haddii tabasha jirto haddii maxaan ku raaa xanuun badan oo hore uu jiro yaanan shalay la noolaanin waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa walaalaha muxuu ahay waqooyi bari ee yiri wixii shalayna gaari wixii naga dhintay maxaan ku iraadaayay gabagii sayidka maxay waxay ku jira durdurkii laday naga dhaceen iyo dawladii geer yacni wixii shalay halaabay hibashadooda macna nooma samaynayso waxay tahay maanta inaan tala inta u fadhiisano war wixii shalay ma xumaayeen haa ma xanuun badnaayeen haa war bariyaana inoo soo noqonin sidii ay noogu soo noqonayeen aan ka hadal aan ka tashano laakiin shalay darigii layga jibiyey aashuunkii layga dardaray iyo maxaan ku iraadaaye layga kala gooyey haddii aan taagnaa tago waa dhib walaalayaal dadaa naga dhintay maalintii magaaladan madaaficda ay ku socotay ayaan ciddii xasuustaa masaajidka madaxtooyada dhexdeeda ku yaalla waxaan ka yidhi war maa la heshiin doonaaye qubuuraha korkooda yaan lagu heshiinine maanta ayadoon qubuura jirin ha la heshiiyo nasiib darro ma dhicin laakiin maanta hadda weliba dadka reer waqooyi bari waxay leeyihiin war qubuurihiianba muxuu ahaay inaan ka tagnoon hore aan rabnaaye aan heshiino wax loo ma laha war Soomaali waa isdishay waa la dilay intaan iska dilnay inta ajnabi naga dilayaa ka badan inta badaha nooga sii dhimanayso maalin walba nambarkoodu si badan waxaan ku joogi karnaa waa midnimo iyo dawlad xoog leh inaan samaysano soo haweysan jira waa markii saddexaad ee dalkeena dibadda inta looga soo duulo aan u taaganahay leenahay maya badda waa qaadanayna maya dhulaan inta ka goosanaa maya maanta hadda waaba soo degaynaa timidba meeshaba annagaa soo degaynaba oo cidda kale meelo kale ka soo jacburuna soo qasabnayna intaan keenayna iska soo daadinayna halkaan meelan geeyna weynaa halkaan dadkaas reer Falastiin 70 sano ayaa dhulkooda laga dhaqaaji waayay 70 sano inta uu xagga wala madfac ku rid inta waa la dhaqaaji waayay annaga ma sahlayna in dhulkoodii laga soo wado ya say suurtagal ku tahay in dhulkoodii dadka 70 sano diiday inay dhulkooda ka tagaan
ku baaba'ay ku dhintay ee aan arkaynay wixii ku dhacay caruurihii iyo haweenkii iyo masaakiintii iyo gurihii aad arkaysid maanta u malaysid meel maxaan ku rahaa aakhiro aad u malaysid magaalooyinka qurxanaayo dhisnaa daaraha leh dadkiyaa la soo qaadayaa halka inta lagu soo daadiyaa looga tegayaa ay xuquuqdoodii abadiyo ku weynayaan dhulkan dhul Soomaaliyeed waa dhul Soomaaliyeed waa Soomaali un baa lahaa leh ayadaana lahaanayso adduunyada waxaa ku nool dad la yiraahdo biduun waa maxay dal ma leh dawlad ma leh waa nool yahay waa socdaa wuxuu inuu noolaado waa loo ogol yahay laakiin ma leh maanta qarniga 21aad ma horseedayno raallina kama nihin in dad Falastiin biduun inay noqdaan ma samaynayno naguna waa ku dhibanaanayn ayaguna waa dhibanaanayaan dhagax laba shimbir ku dil waay inuu cadow loo arko iyo annagoo cadow hal dhagaxna lagu dilay suurtagal ma waa diidnay waxaan leenahay walaalahaasna war waxa Israa'iil iyo Netanyahu idin hayaan ka badanaa idin hayna jacaylkooda ka badanaa idin hayna Soomaalinimo iyo wanaag iyo walaaltinimo kooda ka badanaa idin hayna hadday tahay powerkii xukunka si karto mid ka badan hayna na xukuma annaga diyaar na xukuntaane annagoo Soomaali oo midaysan na xukuma laakiin meela aanay wax haabanna soo dhow mar kale waxaan u hambaliyaynayaa madaxda la doortay hay'adaha la dhisay ee dawladnimo iyo bari waxa la idinka sugayaa waa nabad dagaalkii iyo colaadii waxaad ku gashaan la soo aragay bal nabadda iyo maxaan ku leeyahay wanaaga iyo horumar waxaad ku gashaan hal la arko adii alla yiraahdo aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh وشوي قرن بليل